Artificial Intelligence caqliga macmalka ah ayaa beddelay qaabka uu caalamku u shaqeeyo, waxaana uu sameeyay isbeddello waaweyn oo dhinac kasta oo nolosha ah, sida ganacsiga, caafimaadka, waxbarashada iyo amniga. Waa hal-abuurka ugu weyn ee soo maray bini'aadamka, waana mid ku salaysan awoodda kombiyuutarada, kuwaas oo samayn kara falanqayn, gaari karana go'aamo iyagoo aanan u baahnayn faragelin toos ah oo ka timaada bini'aadamka. Tiknoolajiyaddan casriga ah ayaa horseeday horumarro waaweyn, iyada oo dhanka kala xallisay caqabado hore u jiray. Tani waa sheekada AI ama caqliga macmalka ah ee aan rabnay inaan fiidiyowgeena uga hadalno maanta. Intaanan u gelin gudaha muuqaalkan, falow soo dheh haddii aad xiisaynayso barnaamijyada aan halkan ku baahino, lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid. AI wuxuu ka dhigay shaqooyinka kuwo hufan oo wax soo saar leh. Warshadaha waaweyn ayaa adeegsada robotyada iyo nidaamyada AI si ay u qabtaan hawlo waaweyn oo u baahan waqti dheer ama dadaal badan. Nidaamyadaasi waxay yareeyaan qaladaadka shaqada, waxayna ka dhigaan shirkadaha kuwo si fudud ugu tartami kara suuqa shaqada. Intaa waxaa dheer, AI wuxuu suurtagal ka dhigay falanqaynta xogta waaweyn, taasoo shirkadaha ka caawisa inay fahmaan hab-dhaqanka macaamiisha, saadaaliyaan baahida suuqa, oo ay gaaraan go'aamo sax ah. Dhanka kale, adeegyada macaamiisha sida chatbots ayaa bixiya adeegyo joogto ah oo 24 saac ah, kuwaas oo fududeeya wada xiriirka iyo hagaajinta qanacsanaanta macaamiisha. Xagga caafimaadka, AI wuxuu kaalin muhiim ah ka ciyaaray ogaanshaha iyo daaweynta cudurrada. Tiknoolajiyaddan ayaa loo isticmaalaa falanqaynta sawirrada caafimaadka sida CT scans iyo MRIs, iyadoo si sax ah loo garto cudurrada sida kansarka, taasoo kordhisay fursadaha badbaadada bukaanka. Waxa kale oo uu AI dedejiyo habka lagu horumariyo daawooyinka cusub, isagoo kaa caawinaya baaritaanno sahlan oo ku saabsan daawooyinka iyo hababka daaweynta cudurrada. Intaa waxaa dheer, AI wuxuu keenaa caafimaad shakhsiyeed, halkaas oo xogta caafimaadka ee qofka lagu falanqeeyo si loo siiyo talooyin gaar ah oo ku saleysan xaaladdiisa caafimaad. Dhinaca waxbarashada, tiknoolajiyaddan waxay samaysay isbeddello waaweyn oo ku saabsan habka waxbarashada. Waxay awood u leedahay inay ardayda siiso adeegyo waxbarasho oo u gaar ah, iyadoo lagu saleynayo heerka fahamkooda iyo baahidooda. Manhajyada waxbarasho ee AI ayaa ka caawiya macallimiinta inay abuuraan qorshooyin u habboon ardayda. Intaa waxaa dheer, AI wuxuu fududeeyaa habka qiimeynta, isagoo ka caawinaya macallimiinta inay si dhaqso leh oo sax ah u qiimeeyaan shaqooyinka ardayda. Bulshada guud ahaan, AI wuxuu si weyn u beddelay qaab nololeedka bini'aadamka. Tiknoolajiyaddan ayaa ka dhigtay nolosha maalinlaha ah mid fudud. Dhinaca madadaalada, AI wuxuu abuuraa waxyaabo u gaar ah oo ay dadku jecel yihiin, sida filimada, muusigga, iyo ciyaaraha, halka adeegyada sida Netflix iyo Spotify ay adeegsadaan AI si ay u bixiyaan adeegyo ku habboon isticmaale kasta. Xagga amniga, AI wuxuu noqday aalad muhiim ah oo loo adeegsado ilaalinta xogta iyo ka hortagga hanjabaadaha khatarta ah. Tiknoolajiyaddan ayaa loo isticmaalaa ogaanshaha weerarada cyberka, iyadoo lagu bixiyo digniino hore iyo xallinta khataraha kadib markii ay dhacaan dhibaatooyinka. Intaa waxaa dheer, AI wuxuu hagaajiyay sirdoonka ciidanka, iyadoo dowlado badan ay adeegsadaan nidaamyada AI si ay u sameeyaan qalab casri ah oo amniga lagu sugo. Inkasta oo faa'iidooyin badan uu leeyahay, haddana AI waxa uu dhanka kale leeyahay caqabado la tacaalid u baahan. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn waa saameynta shaqooyinka. Maadaama AI uu beddelayo shaqooyin badan oo caadi ahaan ay bini'aadamku qaban jireen, waxaa kale oo jirta su'aal ku saabsan anshaxa iyo shuruucda AI, sida loo hubinayo tiknoolajiyaddan in loo adeegsado si mas'uuliyad leh oo aan loo adeegsan dhibaato. Gunaanadkii, AI waa awood aan la hakin karin oo qabanaysa mustaqbalka shaqooyin aad u wanaagsan. Tiknoolajiyaddan waxay ka dhigaysaa caalamka mid waxtar leh, iyadoo la hagaajinayo adeegyada ay bixiso, sare loo qaadayo wax soo saarka, oo la fududeeyo nolosha dadka. Si kastaba ha ahaatee, waa in si taxaddar leh loo maareeyaa, iyadoo loo baahan yahay shuruuc iyo xeerar si loo hubiyo in horumarka AI uu ku socdo jiha sax ah, taasoo ka faa'iideynaysa in la fududeeyo nolosha bini'aadamka oo dhan.